weeyaan waa boqolkiiba 60 bulshada waa laf dhabarta dalka Soomaaliya haweenku waxa weeyaan waa muraayada dalka waa inay ka muuqdaan miis kasta oo shaqada siyaasadda dhaqaalaha dalka wax walba inaan boqolkiiba 30 ku leenahay oo ka helaa koontadeedaas ma aha kaliya tayn la naga siinayo doorashooyinka iyo labada aqal waxay mas'uuliyad ka saaran tahay dhaqanka Soomaaliyeed waxay mas'uuliyad ka saaran tahay mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ee federaalka iyo maamul goboleedada waxay uga saaran tahay inay xaqiijiyaan inay xeer nidaaminta ku daraan saddexdii kursi ay beelahay mid gabadh in laga dhigo anaa ka soo bilaabay shaqaale dawladeed nin waxa la fadhiisan jiray niman raga xoghayn baan ahaa waan ka shaqo badnaa waan ka dadaal badnaa ilaa maanta oo daadaan ahay baan ka dadaal badannahay ragga waanu ka adkaysi badannahay waanu ka aamin badannahay gabdhuhu ma aha kuma tarki falaan hadda dhaqaalaha kale hadii gabdhaha loo wada dhiibo oo meel kasto dhaqaalaha gabadh loo dhiibo dawladdu korka bay u mari lahayd waayo anaa dhalay anaa dhaqaya anaana dhisay annagaana wadayna hawsha